بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داود الكسو دوادا كنال كينيكس اوفيشال ومركي برنامج كان دورحل قيبتي سلابات قيبتي سكوباد waxaan soo wada qaadanay hal abuur walaalkeen Axmed Faarax caaw waxayna martiya Axmed Abdiraxmaan Saalax oo imakeena la jooga Axmed Abdiraxmaan Saalax qodobku uu ka hadlay intaynaan guda galin waxaan ogeysiin doonaa barnaamijkan inuu dhici doono aan baan soo galin doono maalin kasta khamiistan waxayna martiya oo caaw inala fadhiya walaalkeen Axmed Abdiraxmaan Saalax wuxuu ka hadli doonaa khudbad ku saabsan waqtiga aynu ugu wareejiyo mikrofon. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبو مهسين ولكن عبد المالك محمد إسماعيل نقوم مشروفي أما نقوم ارتقاضي برنامج كان دور حل شانل كان بركيسان هيكس اوفيشال أدبو نقوم هذا علينا أنا جايدنك بقى ولا يسوء إنه شيء ولكن وحن كهذا دونا وقتها كوسا الموضوع كوسابسن إدارة الوقت أما ميرينتا وقتي مركا إنتان موضوع جدقلين إن شاء الله وحن شعل هينا كيره الله وهرت وقتك وامحي ولا وقتك وحن أورانكرنا وارث المالك وقوقا لسان وقفك بني آدم كهيستو سيدو كلا وميد كم إذا نمعوين كقالي جاي وعلى بحيوكو قال الله ابن آدمك ولا ليال وقتك ما لها قيحتان أما definition عد واللي سكر عسيه لكن بدنا وحبا لقو مثالا مسألوين بولية أما لقو مثال بدنا وح لقو مثالا بيه دور درون بلقو مثالا بيه صعانا يوم سيدا بيها وبيقو كلا بيها داتكو كلا بيها لاقا كسو دعيو كلا تايم عنا يدن وحوية وحنو وح صعانا يوم استاجن وقتكم مركا هلقا وحكا داريم كتا إنو يوم وح صعانا يا وان استاج لهاي وحي كردافان الدي وحوية سيكو كردافان ويه soo noqosho male marka walaalayaal waqtigaas ayaynu ka hadli doonaa insha Allah taala iyo sida loo meereeyo sida qofka bini'aadamka uu ku ilaashan karo maadaama waxa kan qofka bini'aadamka iyo waqtiga isla socdaan waqtiga qofka bini'aadamka ma kala maarmaan way isla socdaan wala wax isla socda wuxuu u bilaabmaa qofka waqtiga bini'aadamka markuu uu dhasho wuxuuna ka dhamaadaa markuu dhinto dhimasho markuu dhasho qofku ilaayo intuu ka dhimanayo marka waqtigaasi oo qofka qaaliga ku ah waxaad aragteen quraanka mar walba oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhaaranayo quraanka dhexdiisa waqtiga uu ku dhaaranayo waxa arkaysaa Ilaahay ku dhaaranaya habeenkii Ilaahay ku dhaaranaya wallayli idha yaghsha waxa arkaysaa Ilaahay ku dhaaranaya barqada iyo duha waxa arkaysaa sidoo kale Ilaahay ku dhaaranaya waaga iyo tobanka ugu horeeya bisha Dhulxijja ee barakaysan والفجر وليالي العشر سيدو كale ilaah ku dhaaranaya waqtiga casarka والعصر وانت badan ba quraanka ku jirta ilaah oo ugu dhaaranaya ilaahay wuxuu ku dhaaranayaan waa maxay tay binaadamku ba ilaahay ku dhaartay ilaahay wuxuu ku dhaartaa wuxuu doon ku dhaaran kara laakiin ilaahay wuxuu ku dhaaranayo waa wax qaali ah agtiisa qiimo kale binaadamkana qaali ku ah waqtiga walaal maadaama qaali binaadamku ku yahay damaantii yawm al-qiyaama wal isweydiinaya sida rasuulku inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam xadiiska uu ka warinayo Tirmidhi uu leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam la tazulu qadma 'abdi yawm al-qiyaamati hatta yus'al 'an arba' qofka binaadamka ama adoonku maalinta yawm al-qiyaama ilaahay hortiisa ka dhaqaaqimaya ilaahay afar shay la weydiiyo waxa uu horeeya oo afarta shay la weydiinay ee tahay can umrihi fima afnah umrigiisi la siiyay ama da'dii qofkan uu lahaa inta wixii uu ku dhameeyay qofka la weydiinay haddii khayr tahay khayr ba uu ku dhameynaya haddii shar tahayna shar uu ku dhameynaya mid walbana abaal marinteeda ayuu leeyahay marka waqtiga horta umrigeenu ma aad uma dheera ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waqtigeedu aad uma dheera sida rasuulkeenu inoo tilmaamay a'maaru ummati bayna 60 ila 70 wa qalilun man yatajaawazuha da'aha dadkayga ama umriyada dadkaygu wuxuu rasuulku waxay u dhaxayeen 60 ilaa 70 inta dhaaftaana aad ba u yartay rasuulka kaleey salaatu wasalaam sida daraad walaalayaal waqtigu waxa laga yaabaa hal daqiiqo ama hal second baade oo waqtiga kamida inay kula dhiganto sanad dhan oo waqtiga nabi nuux kaleey salaatu wasalaam marka waqtigu yaraantiisa adoo ha dareemin laakiin qiimaha uu ku fadhiyo iyo halka adeeg ka taagan yahay
waxa weeye inaad ka faa'iideysato haba sida uga faa'iideysatid baan waqtiga ka miro dhalis qodobka ku xiga waxa weeye xadiisku uu tilmaamay Alayhi Salaatu Wasalaam وعن شبابه فيما أبلاه dhalinyaradii qofku wuxuu uu ku baaliyay wuxuu ku dayacay baa la weydiinaya maanta yawm qiyaamah ilaah baana weydiinaya dhalinyaranimadu way baaliyowda dhalinyaranimada shayga dhalinyaranimadu waa shay qaali ah oo in badan xadiisaan iyo aayaadka quraanka ay tilmaamayaan xadiiskii rasuulku lahaa shan ka faa'iideyso intaanay shan kugu iman wax kamid ah dhalinyaranimadaada ka faa'iideyso intaanu gabay kugu iman marka shayga dhalinyaranimadu inuu qaali yahay saas ku dareemaysa xadiiska laftirkiisa wuxuu ku tacalluqayay waqtiga iyo qiimihiisa ayuu ka hadlayay marka dhalinyaranimadaas waxa weeye waxa ka soo horjeeda cagsigeeda waxa weeye gabowgii weey haday dhalinyaranimadu ku dayso gabowgan ku daynayn oo waqtigii waxa weeye qofku gabowbana de waqtiga chance uma helo waqtiga ka faa'iideysigiisa chance u helo marka intuu chance ku hayo qofku waqtiga waxa weeye intuu dhalinyarada yahay qodobka saddexaad oo xadiisku tilmaamay Alayhi Salaatu Wasalaam waxa weeye وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه maalkiisa qofkan ibn aadamka meesha uu ka keenay marka hore xageebu ka keenay horta marka dambe si maalkii xageebu ku bixiyay marka hore qofkan horta ibn aadamka maalkan ma uu isagu salahayn ilaahay maalka iska lahaa oo ilaahay baa siiyay ugu deeqay maalka marka ilaahay haduu siiyay ugu deeqay waxa aboon mar walba qofka ibn aadamka inuu uga faa'iideysto meel wanaagsan meel aan ilaahay ka raali ahayn maadaama ilaahay maalka uu leeyahay ha ku bixini ku bixi meel aan aakhiradaada waxba ka yeelaynin adduunyadaadana wax ku dari karta ku bixi maalkaaga waxa kale oo xadiiska la socota qodobka ugu dambeeya xadiiska uu ahaa waa an cilmihi maada amila fi cilmigiisa qofkan muxuu ku qabtay haduu ilaahay dadka kale ka dhaxsoocay oo cilmi gaar ah ku baray ama cilmi aan dadka kale aqoonayno adigu aad taqaano oo ilaahay ku baray cilmigaas maxaad ku qabat waa dadkii baad wax uga faa'iideysay dadkii baad bartay maqaar baad cibaadadii ugu toosisay cibaadada doontaa noqotay cibaadada salaad noqon kartaa xaj bay noqon kartaa soon bay noqon kartaa sadiq ay noqon kartaa sadaqaduna waa waxyaabo ugu qaalisan ee qofka bini'aadamka markuu dhinto ilaahay la kulmo uu tamaniyo sida ayada quraanka ay sheegayso oo leeyahay ila ajana qariib waqti yar dib lays dhigo in yar markuu arko de waqti amalkiisa oo wanaagsaneyn muxuu sameyn lahaa qofkaas wuxuu yiraan sadaqadinsan lahayo dadka wanaagsan baa ka mid noqon lahaa marka sadaqadu saasay qaali u tahay waxa ku xiran maalkii bay ku xiran tahay sadaqadaasi ina maalkii sadaqaysatid hadalka wanaagsan baa sadaqaysan kartaa waxa sadaqaysan kartaa cilmiga waa sadaqaysan kartaa marka walaalayaal sadaqadaasuna cilmigu waxyaabo ugu waaweyn ee qofku sadaqaysto ayuu ka mid yahay marka cilmigiisi wuxuu qofkaas ku qabtay walaw faatixada baa noqotay haddana qoftii aan faatixada aqoonayn aan sixi karayn ama aad kaga wanaagsantahay aad ka saxid de wax la'aan ma taagnid oo cilmigaaga waxbaad ku qabatay marka walaalayaal waqtigu saas uu qaali u yahay waa shayga qaaliga markaanu ka hadlayno maamahayad badan oo Soomaalidu mahmahaye ka hadlaan waxa kamid ah waqtiga mawjad midna kuma sugan yaani mawjada biyahay way soconaysaa mid baa soconaysa mid kale hadana ka daba dhacaysa waqtinu saas mid yahay waxa weeye maalin baa ku soo galaysa habeen baa hadana ku soo galaya maalin kale habeen kale uu soconaya isagu ma istaagay kii socdayna ku soo noqon maayo saas ku socdo marka waqtigu waxa weeye waa soo noqosho male soo noqon maayo sida biyaha mawjada buna la mid ahayn ma kala waxa ahayd saddex ma soo laabtaan waqti tagay oraha aad tiri iyo falaada aad gantay hadii aad leebka ama leebka hadii aad ka saartid qaansadan iyo waxan aad ku ridaysay marka hore ku soo qabasho male oo dib kama daba tagi karays meesha aad ku gantay oo aad ugu tala gashay inaad ku ridid unbe tagaysay marka ka soo noqon mayso orahda tirina hadalka marka tiraado de haduu hadal wanaagsan yahay hadal wanaagsan baa tiri hadii uu qaldan yahay laakiin de ilaa aad ka daba geysid raali geliyo waxyaabo la mid ah hadalkii laakiin ma soo celin kartid oo hadalkii dib uma sixi kartid ilaa yaa ku saxdiday raali gelinta waxa aynu sheegnay mooyaan laakiin waqtiguna labadaas buu la mid yahay sida mahmaadu de ina tusayso ama ka muuqata waqtigu wuxuu la mid yahay falaada gantay oo kale ama orahda tiriyo aan ku soo noqonay waqti la mid waqtiga haduu tago ka daba tagmale waxa soo socda mooyaan baad leedahay adigoo de ka faa'iideysan kartaa waqtiga walaalay qiimaha suu leeyahay
marka insha Allah taala hadaba waqtiga maadaama qiimaha leeyahay maxaynu kaga faa'iideysan karnaa ama seebeen u maareyn karnaa waqtiga u ilaashan karnaa qodobka koowaad dhowr qodob in insha Allah soo qaadan doonaa kama gaadhno marka insha Allah taala waayo waa aad buu balaaran yahay hadeen ku sii dheera hadeen ku sii dhex jirno wax laga yaabaa in si sharaxno inuu dheeraado marka walaal waqtigu maadaama yahay waqtiga qiimaha leh insha Allah waxaynu ka soo qaadan doonaa dhowr qodob oo ku saabsan waqtiga sida lagu maareyn karo qodobka koowaad waxa weeye taxliilul waqti waqtigaaga ina xisaabiso ama qofka bini'aadamka inuu waqtigiisa xisaabiyo Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu yiri xaasabu anfusakum qabla an tuhasibu nafiina xisaabiya intaan la xisaabin ka hor taasoo uu la jeeday yaani qofka bini'aadamka markuu naftiisa xisaabiyo waa markii ugu wanaagsan tahay uu naftiisa wax ka bedeli karo hadduu qofka bini'aadamka naftiisa xisaabiyo wuxuu ogaan karaa waxa ka qaldan sida daraadeed wixii ka qaldana ayuu bedelaya marka sida qofku ku maareyn karo ama uu ku xisaabin karo waqtigiisana waxa kamida inuu tusaalahan saacadii soo dhaafay oo kale waqtigii soo dhaafay oo kale inuu xisaabiyo waqtiga maxaad qabatay waqtigaana maxaad qabatay waqtigaana maxaad qabatay marka waxa uu soo bixaysa inaanu waqtiga waxba qaban ama inuu wax qabtay ama inuu wax qabtay uu yar yahay marka uu sii kordhinaya oo dadaal buu ku daraya marka walaalayaal qofku waqtigiisa inuu xisaabiya waa muhiim inuu analyse gareeyo oo la fogro waa muhiim waqtigiisa qodobka labaad waxa weeye daa hadaf inuu qofku hadaf u yeelo waqtigiisa badana waxaynu aragnaa qof bini aadama oo ama wuxuu ruuxu doona ha noqday wuu soo galaya in xaafada wuu seexanaya waxba cunaya arrintu soo kacaya waxa weeyeen kabiisu baa la sheesanaya dharkiisa yar buu ka wadsanaya dhiidu ka xidhaya waa baxaya ama turub iyo waxaas iska soo ciyaaraya ama haba makhaayad buu ka shaah ka cabaya ka sheekeynaya yaani qofkaas hadaf buuna lahayn ahdaaftiisi baan u xaqiiqsanay qofkaas ahdaaf buuna lahayn oo hadaf la'aan way marka badana waxa yiraahdaa Soomaalidu qofka jihada ka lunsan qofka jihadu ka lunsan yahay wax kale ma aha waa qof bila hadaf wax uu ku xisaabtamo ma uusan lahayn oo uma diyaarsanaba marka qofku inuu hadaf yeeshana waa muhiim sidoo kale waa inuu qofku jadwal samaysto jadwal maalinle jadwalku ama sanadlaha noqdo sanadkaas oo dhan wuxuu qaban lahaa bishaas oo dhan isbuuca ama maalinta waa inuu jadwal samaystaa waa muhiim sababtoo ah jadwal la'aan qofku kuma shaqayn karo waliba waa inuu focuska iyo xooga uu saaro sidii u kala muhiimsan yihiin waxyaabaha ahdaaftiisa ayuu u qorshaysan inuu qabto maalintaas isaga iyada qodobka afraad ee ku soo gabagabeyn doona insha Allah taala wuxuu noqonayaa استغل وقت الانتظار واستغل وقت الانتظار inaad ka faa'iideysatid waqtigaaga aad wax sugaysid waqtigaaga wax sugaysid waiting time-kaaga inaad ka faa'iideysatid tusaale ahaan saaxiibka isla shaqaysan ayaad adigu gaari baa wato isaguna ma wato waad shaqadaad u sii qaadaa subax kasta gaari baad ka xisatay aeronamadkii waqti isagoon diyaar ahayn baad u tagtay inta aad sugaysid gaarigaaga de mobilka hal walaaqina ku dhex jirin waa inaan waxun uga faa'iideysto ama dikriga alla uga faa'iideysto cibaado ama wax akhri ama waxun wax alaale waxa doontid uga faa'iideysto wax un aad wax ku taraya waa inaad uga faa'iideysataa sida daraadeed waqtigu waxa weeye qiimahaas walaalay leeyahay waqtigu lama baahna qofka bini aadamka ay inuu waqtigiisa dayaco Abdullah bin Saud wuxuu tilmaamayaa radiyallahu anhu in rasuulku yimi إن الله لا يحب رجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في آخرة إلهي ما جعل قفك أما روح دونها النقطة لبي يدك كل دونه الدونك إن وقتك يصديع الدونك وقتك يصديع وجد هذا كل ما عمل الدنيا عمل آخر منا أن قبنين وحوي قفكاس إلهي سبحانه وتعالى ما جعل مرك عمل كاو إن وإنه عمل ونكسر نقطة عبادة واللي جارهن عبادة وقتك إن وقتك وإنه بدنا عبادة وإنه بدنا إن شاء الله تعالى إن أصحابي عبد الله بن سعود إن إمك حديث كسورنا وح لقاها يا ويري إن ولي كمان مرجونين أنت أنا كم مرجودي مالين دافتي وعمري كقاضي أنت أنا مالين كم مرجودي ولي كمان أنا مرجونين بير صحابي قاس مركوا على الوقت ووقتك قيمة عليه مركا إنه مارينو ووقتك إنه إلى شنو آد بمهمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بعد ما سنتي
جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. ولكن أحمد قضب كاي نقلا هالله موضوع عام كصابسن وقتها أدي أدبنا قام هالنقينا إلهي نقنا نقدر كو عمل فلا السجن إلهي ميزانك حسنات كقدره. أنت هنا كسي بحين موضوع أحمد كهلي ما نصير وحن قدر يا أنا نمك صوت ديارين دور كده تضيع جوهرية ما نصدق سوى حيلهيد ما نوعنان تنرشيو ملعس كده وياها وين عن مشقع شور إن عبالة بموسطة مسؤول وينو وأنا رقم أرمان. أنت هنا ما نصدق كبحين وحن لي هاي دتك وكهلي أحمد وقتك كم صعب سنة كلية إن ضد النيرة ضد ويلا وقت وكلية وحكو كوبين هاي ضد كردن إن أنت تاني برنامج كقيبتي سدحات كل مدونة وحن كجتجينا أنا جاي ولكن الشيخ أحمد عبد الرحمن صالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.